السلام عليكم wadamo badan ayaa u xiiseeyay ma ku dadaalo waaxda waxbarashada ee maanta waxayna siiyaan lacag fara badan iyo qoondooyin loogu talagalay horumarka iyo helidda boqolkiiba inta ugu badan dadka waxbartay ee wadanka sidaa darteed inagoo in awoodda dawladdu ku dhisantay waxbarashada marka laga yimaado dhaqaalaha bulshada iyo xataa xagga siyaasadda haddaba waxaan maanta idiin soo gudbinayaa sidii dawladood ee ugu waxbarashada wanaagsan caalamka sidoo kale ka hadli mayno mawduuca gudihiisa dhaqaalaha ay ku bixiyaan ama jaamacadaha ku yaala dalalkan laakiin waxaynu kaga hadlaynaa boqollada dadka waxbartay ee dalalkan dalka koowaad Canada waxaa lagu qiyaasaa dadka helay waxbarashada sare in boqolkiiba 51 ay ka yihiin suuqgeynta dadka halkaa ku nool halka dadka wuxuu bartay ama helay waxbarashada dhexe ay yihiin boqolkiiba 99 dadka dalkaasi taasoo macnaheedu yahay boqolkiiba hal ayaan waxbaran waxaa sababa in dadka boqolkiiba 99 ay waxbarasho helaan Canada waxay leedahay nidaam waxbarasho oo gaar ah oo ka baxsan nidaamka federaalka ee dalkaasi dalka labaad Japan dadka helay waxbarashada heerka sare waa boqolkiiba 45 suuqgeynta dadka dalkaasi inagoo in Japan ay leedahay nidaam aad u horumarsan oo aanay kula tartami karin wadamada dhigeeda ahi dalka saddexaad USA ama United States of America in ku dhow boqolkiiba 42 ayaa helay waxbarashada heerka sare waxaa taa sabab ah Mareykanka waxa ku dhex yaala ama ay hantiyeen jaamacadaha dunida ugu wanaagsan sidaan ku arki doono barnaamijyadan soo socda dalka afraad New Zealand iyadoo lala qabo inay ku jirto liiska dawladaha macallimiinta mushaharka ugu badan qaataan caalamka haddana waa dawlad wax badan laga faa'iiday soo saarta daraasadaha ugu anfaca badan caalamkan dadka waxbarashada sare helay ee New Zealand waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 40 dalka shanaad UK dadka reer UK ee helay waxbarashada heerka sare waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 37 inagoo inay sidoo kale UK haysato jaamacadaha caalamka ugu sareeya sida Oxford iyo Cambridge dalka lixaad Norway dadka helay waxbarashada heerka sare ee secondary-ga waxa lagu qiyaasaa inay yihiin boqolkiiba 37 halka dadka helay shahaado jaamacadeed ay kor u dhaafayaan boqolkiiba 41 waxaan ogsoonahay inay Norway kaalinta saddexaad kaga jirto liiska dawladaha dhaqaalaha ugu badan ku bixiya waxbarashada waana taariikh u saamaxay inay heerkan soo gaadho dalka toddobaad Australia dadka helay waxbarashada sare waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 39 halka dadka helay shahaado jaamacadeed lagu qiyaaso boqolkiiba 59 saa daraadeed waa dawladda ugu waxbarashada wanaagsan oo fureed ee caalamka dalka sideedaad Finland way heshay ama gashay kaalmaha ugu sareeya waxbarashada caalamka waliba dhanka akhriska sportska sayniska dadkeeduna boqolkiiba boqol waa dad waxbartay waxaa taas sabab ah in waxbarashada Finland ay tahay mid bilaash ah yani qofka aan guri fiican ka toosin qofka guri fiican ka soo qofka dhaqaale fiican haysta qofka dhaqaale fiican haysan labadaba way sameeyeen dawladda Finland kaliya wax ka rabta in magacaaga diiwaan geliso kursigaas ka fadhiisan saa in lacag ku weydiimayso Finland sidoo kale waa hoyga ama hooyada soo saarta injineerada iyo gaariqaanada caalamka taa waxa loo leeyahay yani inta badan dadka Finland ee reer Finland wax barta waxay inta badan jaamacad ka qaateen kulliyadaha ah injineeriga iyo gaariqaanimada labadaas u qaataan injineerigu wuu badan yahay ahmoodinkii guriga qura dhisay injineerada ka badiyay intaas ku soo koobnaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh